sanad guuradii 26aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka ee naftood horayaasha ah ayaa saaka lagu qabtay qaybta 12aad ee ciidanka qaranka ee gobolka Togdheer munaasabad kooban oo ciidanku ay ugu dabaal degayeen munaasabada sanad guurada 26aad ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer kuwa degmada Burco abaanduulaha ciidamada qaranka ee aaga bari saraakiisha saraakiil xigeenada iyo ciidamada kala duwan ee qaranka iyagoona ay soo bandhigeen ciidamadii qaranka ee ku sugnaa goobtaasi dowladus ciidan oo ah mid lagu kalsoonaan karo abaanduulaha aaga bari ee ciidanka qaranka Somaliland Maxamed Abukar iyo sidoo kale abaanduulaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka Somaliland ee gobolka Togdheer Kayd Ismaan ayaa ka waramay marxaladihii uu soo maray ciidanku guulada 26aad ee ciidanka qaranka waa maalin ku aasaysan guul gobonimo iyo sharaf waa maalin ragii oo ciidanka qaranka ay ahaan niman u dhawaaqay duruufaha waayo fara badan oo soo maray taliyaha ciidanka qaranka abaanduulaha saraakiisha saraakiil xigeenka arrinta iyo dowladda dhammaan ciidanka qaranka waxaa leeyahay aqooniyo waxaan aqooniyo u dirayaa dhammaan ciidanka qaranka meel kasta uu joogo saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda xaasaskooda dhammaan waxaan salaam u dirayaa ciidanka qaranka dowladda Soomaaliland ciidanka qaranka waxaa la aasaasay 1994 bishii labaad oo maanta ku beeray ciidanka qaranka dowladda Soomaaliland waxaa lagu aasaasay si arag oo ay awgeeliso oo ku dheer ama ku dhisan dowladda iyo waay aragnimo taasoo ah ilaa maanta uu ku shaqeeyo ciidanka qaranka gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye maayirka degmada Burco Ustaad Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo sidoo kale taliyaha qaybta Bilayska ee gobolka Togdheer ayaa hambalyo iyo bogaadiba u diray ciidamada qaranka ee kala duwan waqtiga shaqaalada waxay ilaahay mahadiis subxaanahu wa ta'aala ciidanka qaranka uu meel marayay inay jirtay mar la isu keenay waa maanta goobjoog farxad bay ii tahay ana koobi karaynin inaan ka soo qayb galo sanad guuradii 26aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland sababtoo ah waxaan ogaa maalintii la aasaasayay waxaa maanta sharaf weyn iyo farxad iyo reerreer inoo ah in aynu maanta u dabaaldegayno 26 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ciidankaas oo runtii sida laga warramay ama laga warbixiyey soo maray marxalado kala duwan oo mid waliba waayaheeda iyo waqtigeeda ay ahayd maantana ay sanadkii 26aad gaadheen oo dee aynu odhan karno laba jeer gaargaarkii waxaa uga dhiman 4 sannadood muddada ay ciidanka qaranku soo dhisnaayeen runtii waxa ay qarankan u soo qabteen waxyaabo badan oo muhiima oo ay kow u tahay sugista iyo ilaalinta xuduudda Jamhuuriyadda Somaliland ay la wadaagto dalalka aynu jaaxanahay sidoo kale waxa ay ka qayb qaataan marka loo baahdo amniga gudaha waa ay ka qayb qaataan waan ku ammaanayaa waan loogu mahadnaqayaa hawsha ballaaran ee ay qaranka u hayaan ciidamada difaaca qaranka Somaliland ee militariga ayaa la aasaasay sanadkii 1994 iyadoona ay noqonayso sanad guuradani 26aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidamada qaranka Somaliland Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishinka caalamiga Ariel magaalada Burco adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida